masaajidkii nabigeena calayhi salaatu wasalaam rasuulka oo maalin fadhiya ayuu nabigu yidhi nin ahlul janna inagu soo bixi doona eega buu yidhi nin soo weyse qaataa maskiidka eridiisa ka soo galay haddana maalin labaad buu nabigu yidhi nin ahlul janna inoo soo geli doona isla ninkii unbaa soo galay haddana maalin saddexaad buu nabigu yidhi nin ahlul janna inoo soo geli doona isla isagii unbaa soo galay cabdullaahi bin camar bin caas radiallaahu canhuma saxaabiga jaliilka ahaa ee muxadidka ahaa ayaa ninkiibuu markaa marti u noqdo martigelin buu ka dalbay isagoo ku andacoonayo oo leh aabbahay baan isku soo dhacnee bali marti qaad cidna iskumay soo dhicino wuxuu rabaa bal ninkani waxa uu ku noqday ahluljanno maaragtaane camalka uu ahluljanno uu ku noqday haddoo doontidoo maaragtaane adiguna camalka hala timaadin dadkaas ilaahay bay ka baqayeenoo dad aakhirada u socday haayeen deedna camalka aakhirada ay ku liibaanayaan bay ku kala dayanayeen halka innaguna maanta adduunyada aan u kala badinayn dadkeenna maanta adduunyada iskaga dayanayaan adduunyada ayay maaragtaan u kala badinayaan adduunyaday isku nacayaan adduunyaday ku saaxiibayaan adduunyaday u wada safrayaan adduunya darteed bay u kulmayaan adduunyaa maaragtaan loo kala badinayaa ayagoo aakhiraday u kala badinayeenoo wuxuu is yidhi ninkani bal waxa uu jannada ku galu saxaabada ku dheeraaday camal ha fiiri sidoo adiguna camalka hala timaadid saddex habeen markuu martigelintii uu ka helay wax camal oo dheeraad uu qabanayana uu ka waayey ayuu runta u sheego wuxuu ku yidhi aabbahayna iskuma soo dhicine saddex maalmood ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam nin ahlaljanna inagu soo bixi doona saddexdii maalmoodna adiga unbaa noo soo galee maxaad ahlaljanno ku noqotay balii sheeg buu yidhi waa kanoo cibaadadaada habeenkii ma badno qur-aan akhriskaagu ma badno salaada witridana saacadaha dambe baad iska kacday oo tukataa soo jeed badan iyo tilaawad badan iyo acmaal badan habeenkii ma lihide bal waxaad ku noqotay ahlaljanno ayaa raadinaya say waxu jiraan kuwa maa ra'aytay buuhi walaalkayow acmaasha aad igu aragtay unban anigu aan qabtaaye wax dheeraadoo camal oon leehay ma jirta buu ku yidhi markuu ka sii jeestay ayuu yidhi kaale midaad ogayn baa jirto adiga kuu muuqan waa midee habeen kaste waxaan seexdaa anoo qalbigaygaasi uu nabad qabo oo qof muslima aan xumaan maaragtaane iyo calolxumo iyo xasad iyo qilli aanan ugu haynin oo qalbigaygu saliim uu yahay ayaan seexdaa buu yidhi markaa buu ka yidhi ta aad maqaamka ku gaadha waa taa buu yidhi haddaba waalcaafiina can innaas sifaadkaasay dadka mutaqiintu ay leeyihiin dadka alla ka cabsiga leh فما أحوجنا إلى هذه الصفات صفات كاسا نباهنا مانتا إلهي هدان سفي عن أقرنو ونسفي عن إلهي أقعب صنو نرش أن الدوية إنو معانان علماء الإسلام الشيخ كمدة أيايري لعله إمام غزالي إنوها اللهم نحرسته ورجنة الدوية إنك يدونا يو إلهي قربو كيدي جنة آخرة إنك دونا ينا جنة آخرة وإلهي أركتني سبوني jannada adduunyaduna waa ilaahay garashadiisa sheekh kalena wuxuu yidhi ilaahay adduunka dusheeda jannuu ku leeyahay jannada adduunyada ninka aanan gelinna jannada aakhira ma galo markaasaa lagu yidhi jannada adduunyada waa maxay noo sheego wuxuu yidhi jannada adduunyadu waa ilaahay macrifadiisa buuri waa iimaankii camalka saalixa wallaahi waxaan u malaynay ninku mawduuc kale in laynagala hadla aad meesha ku sugayseen لكن موضوع سوى أساسه موضوع التقوى إن إلهي أنك بغنو وإلهي حرير في عنا الله يلنو ووحا كلي نلوشي الدنيا لإنوها قاجنية آخرة بإنوها قاجنية إمام الشافعي رحمة الله عليه أي أركنين ملفر آدم ورويسا مركز أوي مدوح وكيري يعني مدبا كقول عدوني دواتين سنبا دي لأكتها مركز ولها دوات وين باي هايسته وكيري oo dhibta ku haysata maxay tahay buulow wuxuu yidhi sheekh runta ma kuu sheega haa aniga iyo dadkiiba kala baxnay buuri cid aan la heshiisahay ma jirta buuri reerkayga waan kala dhaqaaqnay labadaydii waalid waan kala dhaqaaqnay qaraabadaydii waan kala dhaqaaqnay dadkii ehelkii waan kala dhaqaaqnay dadkii oo dhinaca iyo anoo dhinaca marka cidhiidhiga rafaadkaabaa ku jiraa buuri imaamku marka saasuu eego culimmadu waxay lahayn firaaso wax la yidhaha firaaso nuur baa ilaahay qalbigooda geliya ay ku arkaan qofkan xaqiiqadiisa waxaa markiiba u soo baxday addoonkan iyo xidhiirka rabbiga u dhexeeya meesha inuusan jirinba ama inuu xidhiirku yahay xidhiir daciif oo taageer
wuxuu yidhi anaa su'aalku weydiin boqol qof inaad raalli geliso hal mar keliya iyo mid keliya inaad raalli geliso iyo maa kuu fudud markaabuu ku yidhi dee midka keliya fudud weliba midka keliya hadduu raalli kaa noqdood isaga raalli gelisid boqolka kale asagaa kaa raalli gelin markaasuu yidhi waa kee markaa buu yidhi waa ilaahay buu ku yidhi allah buu yidhi allah markaabuu ninkii madaxuu ruuxo wuxuu yidhi nambarka iga qaldan baad ii saxday buu ka yidhi halka layga haystaba waa halkaa buu yidhi aniga iyo rabbigay xiriirka naga dhexeeya ayaa daciifa buu yidhi ama meesha ma jirin buu yidhi orodoo ilaahay cilaaqa fiican la yeelo khalqiga aad arkayso dhan isagaa ilaahay kugu soo xidhi markaas haddaad tidhaa bini aadan raalli geli waa qaayo aan la gaadhi karayn laakiin ilaahay raalli geli way fududahay hadduu ilaahay raalli kaa noqdana nolosha adduunyadu waxay ku noqonaysaa easy wax dhib yarba nolosha adduunyadu ku noqon siiratu saxaaba eega qarna alawal waa khayra alquruun qarniga la dooni dadku inay eegaan ay ku daydaan waa qarniga laynaga dhaadhiciyey qarniga dadku dameero iyo fardo iyo baqal iyo lug iyo noloshu baadiyay haayeen baa laga dhaadhiciyey oo waxaa qarnigan maanta aan joognaa laynoogu sheegay qarna taqadum qarniga horumarka iyo taqadumka kana laynoogu sheegay qarnigan maanta aan joogno maaha qarnigii horumarka hadduu horumar uu jirana maaha bini aadanka waxaa horuu maraye aalaadkanaa horuu maray aaladdan aan ku hadlayna ayaa la soo saaray tan la isku arkaya maqalka iyo muuqaalka ayaa la soo saaray aalaadkan samada iyo hawada cirka inta u dhaxaysa duulaya ayaa la soo saaray amaa bini aadan insaaniyaddii bini aadantinimadii hoos bay u dhacday mise kor baa u socotaa bini aadantinimadu yaa hoos baan u dhacnay hoos taqadum wuu jiraa zamankan laakiin waxa taqadumay waa qoryaha waxa taqadumay waa birta waxa taqadumay waa aalaadkan waxa taqadumay horumaray waa itisaalaadka waxa taqadumay waa telecommunicationka waxa taqadumay maaragtaane waxaan aad leedihin technology balaayada iyo fitnada maanta adduunyada ku kordhiyey waxaana taqadumay mooyaane bini aadantinimadii hoos bay u dhacday maanta zamanka dadku ay horu mareen haddaad doonto inaad fahamto waa qarnigii nebi maxamed iyo saxaabadu adduunka ay joogeen khayrulquruuni qarni baa nebigu yihi calayhi salaatu wassalaam qarniyada qarnigaa aan jooga ugu khayr badan qarnigaa wuxuu ku khayr badnaa ma ahayn macdan baa dhulka laga soo saaray baa lala soo baxay ma ahayn diyaaradaa la sameeyey ma ahayn maaragtaane teknolojigan aan haysanaa la soo saaray may qarnigaa wuxuu ku horumaray waxa weeyaan dadkaa la hagaajiyo laga shaqeeyey dadkaa la hagaajiyey masaajidkii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam rasuulka oo maalin fadhiya ayuu nebigu yidhi nin ahluljanna inagu soo bixi doona eega buu yidhi nin soo weyse qaataa maskiidka eridiisa ka soo galay haddana maalin labaad buu nebigu yidhi nin ahluljanna inoo soo geli doona isla ninkii unbaa soo galay haddana maalin saddexaad buu nebigu yidhi nin ahluljanna inoo soo geli doona isla isagii unbaa soo galay cabdullaahi bin camar bin caas radia allaahu canhuma saxaabiga jaliilka ahaa ee muxadidka ahaa ayaa ninkiibuu markaa marti u noqdo martigelin buu ka dalbay isagoo ku andacoonayo oo leh aabbahay baan isku soo dhacnee bali marti qaad cidna iskumay soo dhicino wuxuu rabaa bal ninkani waxa uu ku noqday ahlaljanno maaragtaane camalka uu ahlaljanno uu ku noqday haddoo doontidoo maaragtaane adiguna camalka hala timaadin dadkaas ilaahay bay ka baqayeenoo dad aakhirada u socday haayeen deedna camalka aakhirada ay ku liibaanayaan bay ku kala dayanayeen halka innaguna maanta adduunyada aan u kala badinayn dadkeenna maanta adduunyada iskaga dayanayaan adduunyada ayay maaragtaane u kala badinayaan adduunyaday isku nacayaan adduunyaday ku saaxiibayaan adduunyaday u wada safrayaan adduunya darteed bay u kulmayaan adduunyaa maaragtaane loo kala badinayaa ayagoo aakhiraday u kala badinayeenoo wuxuu is yidhi ninkani bal waxa uu jannada ku galuu saxaabada ku dheeraaday camal ha fiiri sidoo adiguna camalka hala timaadid saddex habeen markuu martigelintii uu ka helay wax camal oo dheeraad uu qabanayana uu ka waayey ayuu runta u sheego wuxuu ku yidhi aabbahayna iskuma soo dhicine 3 maalmood ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam nin ahlaljanna inagu soo bixi doona 3dii maalmoodna adiga unbaa noo soo galee maxaad ahlaljanno ku noqotay balii sheeg buu yidhi waa kanoo cibaadadaada habeenkii ma badno qur-aan akhriskaagu ma badno salaada witridana saacadaha dambe baad iska kacday oo tukataa soo jeed badan iyo tilaawad badan iyo acmaal badan habeenkii ma lihide bal waxaad ku noqotay ahlaljanna ayaa raadinaya say wuxuu jiraa
huwa maa ra'ayta buuhi walaalkayow acmaasha aad igu aragtay unban anigu aan qabtaaye wax dheeraadoo camal oon leehay ma jirta buu ku yidhi markuu ka sii jeestay ayuu yidhi kaale midaad ogayn baa jirto adiga kuu muuqan waa midee habeen kaste waxaan seexdaa anoo qalbigaygaasi uu nabad qabo oo qof muslima aan xumaan maaragtaana iyo caloolxumo iyo xasad iyo qilli aanan ugu haynin oo qalbigaygu saliim uu yahay ayaan seexdaa buu yidhi markaa buu ka yidhi ta aad maqaamka ku gaadha waa taa buu yidhi haddaba waalcaafiina can innaas sifaadkaasay dadka mutaqiintu ay leeyihiin dadka alla ka cabsiga leh fama axwajana ilaa hada sifaadkaasaan u baahannahay maanta ilaahay haddaan si fiican u garanno oon si fiican ilaahay uga cabsanno nolosheenna adduunyada inuu macanaan culimmadii islaamka sheekh ka mida ayaa yidhi lacalahu imaam ghazaali inuu ahaa allah u naxariistee war jannada adduunyada ninkii doonaya oo ilaahay gara buu ka yidhi jannada aakhirada ninka doonayana jannada aakhirada waa ilaahay aragtidiisa buu yidhi jannada adduunyaduna waa ilaahay garashadiisa sheekh kalena wuxuu yidhi ilaahay adduunka dusheeda jannuu ku leeyahay jannada adduunyada ninka aanan gelinna jannada aakhira ma galo markaasaa lagu yidhi jannada adduunyadu waa maxay noo sheego wuxuu yidhi jannada adduunyadu waa ilaahay macrifadiisa buuri waa iimaankii camalka saalixa wallaahi waxaan u malaynay ninku mawduuc kale in laynagala hadla aad meesha ku sugayseen laakiin mawduucaas waa asaas ugu mawduucaas attaqwa in ilaahay aan ka baqno oo ilaahay xiriir fiican aan la yeelanno waa waxa keliya nolosha adduunyadoo dhan inoo hagaajinaya aakhirada bay inoo hagaajinaya imaam shaafici raxmatullaahi calayh ayaa arkay nin meel fadhiyo aad u murugaysan markaasuu u yimid oo wuxuu ku yidhi ma dhib baa kugu dhacdo nin dhibaataysan baad iila eg tahee markaasuu yidhi haa dhibaato weyn bay haysatay buu ku yidhi oo dhibta ku haysata maxay tahay buudho wuxuu yidhi sheekh runta ma kuu sheega haa aniga iyo dadkiiba kala baxnay buudi cid aan la heshiisahay ma jirta buudhi reerkayga waan kala dhaqaaqnay labadaydii waalid waan kala dhaqaaqnay qaraabadeydii waan kala dhaqaaqnay dadkii ehelkii waan kala dhaqaaqnay dadkii oo dhinaca iyo anoo dhinaca marka cidhiidhiga rafaadkaabaa ku jira buudi imaamku marka saasuu eego culimmadu waxay dhahayn firaaso wax ladhaha firaaso nuur baa ilaahay qalbigooda geliya ay ku arkaan qofkan xaqiiqadiisa waxaa markiiba u soo baxday addoonkan iyo xidhiirka rabbigii u dhexeeya meesha inuusan jirinba ama inuu xidhiirku yahay xidhiir daciif oo taageera wuxuu yidhi anaa su'aalku weydiin 100 qof inaad raalli geliso hal mar keliya iyo mid keliya inaad raalli geliso iyo maa kuu fudud markaa buu ku yidhi dee midka keliya fudud weliba midka keliya hadduu raalli kaa noqdood isaga raalli gelisid 100ka kale asagaa kaa raalli gelin markaasuu yidhi waa kee markaa buu yidhi waa ilaahay buu ku yidhi allah buu yidhi allah markaa buu ninkii madaxu ruuxo wuxuu yidhi nambarka iga qaldan baad ii saxday buu ka yidhi halka layga haystaba waa halkaa buu yidhi aniga iyo rabbigay xidhiirka naga dhexeeya ayaa daciifa buu yidhi ama meesha ma jirin buu yidhi orodoo ilaahay cilaaqa fiican la yeelo khalqiga aad arkaysoo dhan isagaa ilaahay kugu soo xidhi markaas haddaad tidhaha bini aadan raalli geli waa qaayo aan la gaadhi karayn laakiin ilaahay raalli geli way fududahay hadduu ilaahay raalli kaa noqdana nolosha adduunyadu waxay ku noqonaysaa easy wax dhib yarba nolosha adduunyadu kuu noqon siiratu saxaaba ee qarna alawal waa khayra alquruun qarniga la dooni dadku inay eegaan ay ku daydaan waa qarniga laynaga dhaadhiciyey qarniga dadku dameero iyo fardo iyo baqal iyo lug iyo noloshu baadiyay haayeen baa laga dhaadhiciyey oo waxaa qarnigan maanta aan joognaa laynoogu sheegay qarna taqadum qarniga horumarka iyo taqadumka kana laynoogu sheegay qarnigan maanta aan joogno maaha qarnigii horumarka hadduu horumar uu jirana maaha bini aadanka waxaa horuu maraye aalaadkana horuu maray aaladdan aan ku hadlayna ayaa la soo saaray tan la isku arkaya maqalka ee muuqaalka ayaa la soo saaray aalaadkan samada iyo hawada cirka inta u dhaxaysa duulaya ayaa la soo saaray amaa bini aadan insaaniyaddii bini aadantinimadii hoos ba u dhacday mise kor ba u socotaa bini aadantinimadu yaa hoos baan u dhacnay hoos taqadum wuu jiraa zamankan laakiin waxa taqadumay waa quryaha waxa taqadumay waa birta waxa taqadumay waa aalaadkan waxa taqadumay horumaray waa itisaalaadka
waxa taqadumay waa telecommunicationka waxa taqadumay maaragtaane waxaan leedahay technology balaayada iyo fitnada maanta adduunyada ku kordhiyay waxaana taqadumay mooyaane bini aadamtinimadii hoos bay u dhacday maanta zamanka dadku ay hor u mareen haddaad doonto inaad fahamto waa qarnigii nebi maxamed iyo saxaabadu adduunka ay joogeen khayrul quruuni qarni baa nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam qarniyada qarniga aan jooga ugu khayr badan qarniga wuxuu ku khayr badnaa ma ahayn macdan baa dhulka laga soo saaray baa lala soo baxay ma ahayn diyaaradaal la sameeyey ma ahayn maaragtaane teknolojigan aan haysanaa la soo saaray may qarniga wuxuu ku horumaray waxa weeyaan dadka la hagaajiyo laga shaqeeyey dadka la hagaajiyey